السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي شرف بقيتهاي إن كلمة ذكر ديرته وحان آد وهم بليان يا كودي عصب قوان قابضة وقدوميها وياهي محمد دارة وحان لا همبليو وحان لا هي إلهي كوين كقولية شغل أصليني إن ضي الله ينكدقو وحان كلو هالعلنا يا كودي نوسو قوان قابية فدقان يدمان انت كسو قيب كشيء آد بانو السلام يا وانا محسنين waxaan rabaa inaan dhowr qodob dul istaago waxa la yiri midu waa dardaaran midna waa ka digayaa Soomaalidu waxay ku mahmaahan waxa la yiri dudun in la dugsado iyo in la dareensado la isku meheli karaa la yiri horta gudiga cusub waa soo dhaweynaa waa khayraysanaynaa waxaan leeyahay yaan la dareensan هل الدكتور أيقنا وحنا لا يكوي وحلو إجنادي كصوبها إلهي هكذا وحاوي جوديان شغب بدن خنتي يهول بدن يتنازلات يوح بدن الله يسكت دريبه كويمد وحان إلهي مهديس إلهي إنه كبجبي والناس هلي حدنا إلهي وينيش غيرنا أنا قولنا أسوء دويني وإلهي مهديس وحان كلو ربا ولاalaha maanta noo yeeray inaan wax yar ayaga uga digo waxaan uga digayaa gudiga wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudiga kale ee hay'adaha walaalayaal horta waxaad noo dhaxeeyay gudigii qaban qaabada oo halkaan fadhiya waxaana sheegteen inaad gudiyaal adinku aad u yeertaan magaaladaana magaalo ballaaran oo shaqo badan ama ay ka dhex jirto ama wax badan inoo ogeyn ay ku dhex jiraan weeye waxaan kaga fara dhuuban marka gudigii aan anagoo dhan raaliga ka wada ahayn oo aan soo wada dooranay inaad soo martaan wixii meesha tan dadka ayaga kala yaqaan waxa yar haddaan dib in kugu noqdo nabadaynta hadda aad sheegteen meelo badan bay hadda ka soo dhacday bandiirada bay ka dhacday waxay ka dhacday galdogob waxay ka dhacday hadda halka kan waxaan rabaa wax yar oo kale inaan sheego waxay tahay waxa la xusay dadka la xuli doono ee golaha deegaanka dadkan reegaalkayood wax badan oo waxa jira raba ayagoo aan kriteeriyaal lagu keenin inay golaha deegaanka ka mid noqdaan dadkaas waxaan qabaa haddii la yiraahdo qabiil baa lagu keenayaa ama nin jeclaysi iyo calaaltii la sheegay gobolkana uma fiicna ninkii soo shaqaystay oo 16 sano wax soo baranayna xuquuqdiisa meel baa looga dhacay waxaan ka codsanaynaa nimankiina qaban qaabayaasha iyo odayaasha laftigooda anigu aan ku jiro iyo hay'adaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha kriteeriyaal aan nina dhaafi karin oo ninkaas indhaha soo madoobaadeen iyo gabadhaasba aan dhinacana maaragtay aan lagu xaqirayn in lagu keeno waxaan rabnaa dadka waxyaabo badan bay ugu fiican tahay kuwii waxbarashada diidana inay wax bartaan waa rabnaa horta kuwa maaragtay ninkii wax tari lahaa oo adduunyada wax u sheegi lahaa oo hay'ad la hadli lahaa oo gaalo la hadli lahaa oo ummadda la tartami lahaa inuu meesha yimaadana ayadana waxaan rabnaa ninkaas meesha inuu ka soo baxo oo dadka wax tari lahaa gobolka wax tari lahaa annagana wax tari lahaa wax fiican lagu matali lahaa waa mahadsantihiin